horta arrintaas inay baraanki tahay u badi sababtoo xalaya waxa arkay iyadoo dhahayso TikTok waxa lagu xukumay shamaan camal oo live ay ku jirto kala xabad masoo xasadil rado kala gaar ku xukuma in shantaas maal lagu faa'iideysanayo oo baraanki lagu dhigo maana reer xamar waxaas meeqa telefoonkeeda iyo jaajarkeeda anay iga tagtay qofa banaanka intaagan dhahday sidii ay la hadaltaa lagu leeyahay qaar markay baxdo waxa la yiraahdaa waa la afduubtay qaar waxay dhaayeen waa la dilay qaar waxay dhaayeen waa la heestaa أنا إلا هذا أبي إنه ما شاف شيء ما قال تلفون كذا وهذا كوميشن جري سووا عسى ولا يوم حين كعب سنة قف على قف إنه سحريريو والله يقول مسكين وما قال وحلا هست مالي أدي ما كلام 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 أغاني دبات بدناي waraa wanaagsaneen dhagaha ummadda Soomaaliyeed ayaa goordhow waxa uu naga soo gaaraya magaalada Muqdisho warkaasi oo sheegaya in caawa waliba xilligii maqribka ahayd lagu afduubtay gabadha caanka ka ah baraha bulshada gaar ahaan TikTok ee loo magacaabo Mrs. Sawal maalmihii ugu dambeeyay Mrs. Sawal waxay ku sugnayd magaalada Muqdisho ee dalkeeda hooyo ayada oo ku nooleed magaalada Nairobi gabadhan oo loo magacaabo Mrs. Sawal ayaa waxa ay ku soo caanbaxday bartaasi TikTok waliba muuqaalo kala duwan oo halkaas looga bartay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh laashii muswaldi waxa la dhahoyaa arkoyaa waa maqan tahay waa la xalay waa la dilay horta arrintaas inay baraanki tahay u badi sababtoo xalaya waxa arkay iyadoo dhahayso TikTok waxa lagu xukumay shamaan camal oo live ay ku jirto kala xabad masoo xasadil rado kala gaar ku xukuma in shantaas maal lagu faa'iideysanayo oo baraanki lagu dhigo maana reer xamar waxaas meeqaana qof la xadaayo دفع واحد من قان ضدك فوضى كنافة ساجع على باشا برانك ضدك ديمن قدام خدت عن الله مثلا والله شيء أنا بين نجم قطعي لكن بخلك بخل واحد جعل إنه برانك ma oga hadaba kooxahan afduubka u geystay gabadhan Soomaaliyeed xilliga afduubka uu dhacay waxa la sheegay in ay ahayd xilligii maqribka oo ay gurigeeda ay ku jirtay misna kooxahani ee la bixi السلام عليكم صحابتي soo dhawaada maanta waxaan ogeysiyo waxa maqan walaasheen Miswal xalay markii ugu dambeysay ay xilli joogtay gabdhaha asxaabteeda gabdhihii la xiriiray xalay ayagana ugu dambeysay marka ma aqaan meel ay jirto hooyadeed way ka maqan tahay anaga way naga maqan tahay taleefankeeda hadaa wacdo cid qaawamayso please marka waxaan rabnaa asxaabay inaan la raadisan gabdhaha walaasheen ah marka qof walba waxa loo baahan yahay inuu raadiyo marka insha Allah in la heli doono jecelnahay iyadoo Miswal waxa leeyahay geeri iyo wili nolol midna lagu mahay haddaba adiga muuqaalkan daawanayo u duceey gabadhan Soomaaliyeed haddii aad hore il ugu qabteen walaal halkaas iska dhig maadaama gabadhani ay leedahay dad badan oo mucaarad ku ah marka qof rabo jecel iyo waliba qof rabo nacab waxa leeyahay maanta waxay u baahan tahay ducadiina maadaama gacan cadow oo aan la garanayn ay ku jirto